nabaday daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka muuqaalka dunida oo hadahan oo kale aad uga barateen barteena. barnaamijka maanta waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan caalamka, iyadoo aanu ku soo qaadan doono Iiraan oo mar kale doonaysa wadan ka mid ah khaliijka inuu martigeliyo wadahadaladii nukliyeerka iyada iyo weliba Mareykanka dhex marayay iyo heshiiskaasi qaabka uu ku suurtageli karayo. iyaduna barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. sidoo kale wasiirka difaaca dalka Ruushka oo qaybo ka mid ah dalka Ukraine lagu arkay isagoo kormeeraya cutubyo ka tirsan ciidamada dalkaasi. eedeynta dilkii Shireen Abu Aqli oo loo jeediyay Israa'iil iyo weliba xitaa jawaabo cusub oo soo baxaya, iyo weliba ninka Mansour Bishtiin oo qadiyaan lagaga taagan yahay wadankaasi Pakistan, iyo su'aalo badan oo ka imanaya ninkan cidda taageeraysa. Amir Charles Wales ayaa wajahaya eedeymo adag kadib markii la sheegay laaluush inuu ka qaatay sheekha reer Qatar ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sheikh Hamad bin Jaber Al Thani. qodobadaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, sii share gare, saaxiibadiina la wadaaga, aad ugu mahadsantihiin si aad ugu xirantihiin. aanu ku bilownay. mas-uul ka tirsan dowladda wadankaasi Iiraan ayaa ku waramay in wadanka Qatar ay noqon karayso dowlad martigelinaysa wadahadaladii Mareykanka iyo weliba Iiraan u dhaxeeyay, waxaana la doonayaa mar kale Vienna laga soo wareejiyo isla markaana bartamaha bariga dhexe laga sii bilaabo wadahadaladaasi dhanka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Iiraan muddo u soconayay. lagu daray 5 wadan ee ugu qoodaha weyn caalamka, kuwaas oo doonaya in la dejiyo xiisadda isla markaana Iiraan marna aysan samaysan hub nukliyeer. mas-uul ka tirsan dowladda wadankaasi Iiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay Qatar in fursad weyn ay u haysato martigelinta shirkaasi weliba xitaa wadahadalada dib in loo bilaabo ku aadan Iiraan in iyadu gibi ahaanba aysan samaysan hubka nukliyeerka isla markaana ay ka tanaasusho. mas-uulkan oo la hadlay wakaalada wararka ee Qatar ayaa isagu wuxuu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Cabdillah Nahyan uu isagu ka shaqeynayo qaabka wadahadalka ugu wanaagsan Mareykanka laga furi lahaa, laakiin Iiraan waxay aaminsan tahay inay noqon doonto haddiiba wadahadal lala gelayo Mareykanka mid maslaxadda wadankaasi Iiraan ku imanaya, laakiin aysan noqonin mid keliya Mareykanka iyo reer galbeedku ay ka faa'iidaan. waxay doonayaan lacagaha laga xayiray umuuraha kale ee xanibaadaha in gibi ahaanba laga dulqaado isla markaana la caawiyo dhaqaalaheeda si iyaguna ay uga tanaasulaan barnaamijkeeda nukliyeerka. haddaba Qatar ayaa la sugi doonaa qaabkay uga falceliso hadalka dowladda wadankaasi Iiraan ka soo baxay ee ku aadan in wadankaasi uu martigelin doono. maaha markii ugu horeysay wadankan uu isagu u kala dab qaado xubno ay ishayaan wadankaasi Mareykanka. waxaa ugu dambeysay dowladda ka dhalatay wadankaasi Afghanistan ee iyagu si toos ah xukunka ula wareegeen Taalibaaniyiinta, markii wadahadallo 2 sano soo qaatay ka soconayay magaalada Dooxa ee wadanka Qatar, kuwaas oo lagu dhexdhexaadinayay Mareykanka iyo weliba Taalibaaniyiintu. wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa sheegtay wasiirka difaaca dalkaasi Sergey Shoigu isagu inuu kormeeray cutubyo ka tirsan ciidamada Ruushka ee ku sugan wadankaasi Ukraine. ciidamada wadanka Ukraine ayaa goor hore ku dhawaaqay maraakiib dagaal iyo doomo kale inay ka heleen Mareykanka, kuwaas oo gacan looga geysanayo ilaalinta xeebaha Ukraine, gaar ahaan Odessa oo ku taalla badda madow. ciidamada Ukraine ayaa ka warbixiyay imaatinka 6 markab oo dagaalka iyo 18 doomood oo ka yimid Mareykanka oo gacan looga siinayo ilaalinta xeebaha Ukraine. saraakiisha ciidamada Ukraine ayaa sidoo kale waxay sheegeen ciidamadoodu gantaale ay ku duqeeyeen gaar ahaan hubka casriga ama gantaalada casriga ee HIMARS, laakiin lama sheegin halka ama bartilmaameedka xaqiiqiga ay ku duqeeyeen iyo khasaaraha dhabta. laakiin waxay sheegeen iyagoo baahiyay muuqaalo kala duwan in hubkaasi loo adeegsaday duqeymaha iyo weliba gantaalaha gudaha Ukraine, inkastoo si cad aan loo xaqiijin goobta dhabta ee waxyaabahaasi ay ka dhaceen. taliska howlgalka koonfurta Ukraine ayaa sidoo kale sheegay ciidamadoodu inay fuliyeen weerar gaadmo ah oo ay la bartilmaameedsadeen ciidamada wadankaasi Ruushka ee ku sugan koonfurta gobolka Zaporozhye, halkaas oo la sheegay lagu dilay 300 oo askari oo ciidamada Ruushka. jirada iyo diicood axranood ee laga leeyahay Israa'iil ayaa ku horantay ciidamada Israa'iil in lagu eedeynayo inay si toos ah uga dambeeyeen dilka wariyihii Al Jazeera ee magaalada Qudus Shireen Abu Aqli oo la dilay bilowgii bishii May. magaalada Qudus ayaa lagu xusay maalmihii la soo dhaafay, isla markaana wadooyinkeeda qaybo ka mid ah ayaa lagu magac daray gabadha lagu magacaabo Shireen Abu Aqli ee ay dileen ama ku baxday gacanta ciidamada Israa'iil. bayaan ka soo baxay dowladda hoose ee magaalada Qudus ayaa la sheegay sidoo kale in si weyn gabadhaasi ay uga xumaayeen, isla markaana dilkeedu uu ahaa mid aad u xanuun badnaa. qaramada midoobay ayaa sidoo kale qaybteeda xuquuqul insaanka waxay ka hadleen dilkii dhacay 11kii bishii May
inay ahayd falan qurux badnayn islamarkaana halis gelin karaya xuriyatul qowlka guud ahaan caalamka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in falka geerida uusan ku imaanin dagaal ama xitaa iska horimaad dhex maraya Falastiiniyiinta Israa'iil, balse ay ahayd beegsi toos ah oo ciidamada Israa'iiliyiintu ay ku beegsadeen gabadhan wariyaha iyo waliba wariyaal kale. xoguhu waxay intaa ku darayaan baaritaanadii ugu horeeyay haatanba la soo bandhigay inay sheegayaan in ciidamada Israa'iil si toos ah falkan ay u lug lahaayeen, isla markaana uu ahaa mid hore loo soo maleegay sida ay qabaan khubaro badan oo u dhashay wadankaasi Falastiin ama xitaa guud ahaan Carabta. sidoo kale qaramada midoobay ninka ugu sareeya ayaa waxa uu sheegay inay tahay baaritaanka si degdeg ah loo kala cadeeyo, isla markaana la soo qabto dadkii ka dambeeyay in ay dilaan Shireen. magaciisu waa Mansuur Beshtiin, waana 32 jir, balse waxa uu durbaba markaasi si weyn u gilgilay guud ahaan ciidamada wadankaasi Pakistan oo ka mid ah wadamada ugu ciidamada adag qaaradda Aasiya. waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Bashtuuga, isagoo si weyn u horboodaya banaanbaxyo waaweyn oo kumanaan qof ay ka qayb qaadanayaan oo laga soo horjeedo dowladda. ninkan ayaa si weyn waqtiyadii ugu dambeeyay looga bartay caalamka guud ahaan, iyadoo sidoo kale maxalli ahaana si weyn u caan baxay. wuxuu matalayaa dhalinyarada lagu laayay gudaha dalka Pakistan, isagoo sheegay in eedeymo dhowr u jeedinayo ciidamada dalkaasi. kumanaan qof ayaa la tilmaamayaa ilaa hadda in la laayahay tan iyo inta markaa howlgalladu ay ka bilowdeen xuduudda dalalka Pakistan iyo Afghanistan. sidoo kale waxa la tilmaamayaa in si weyn uga soo horjeedo dadkiisa in la baabi'iyo. waxa uu hogaaminayaa dhaqdhaqaaq la magac baxay Pashtun Tahavus, taasoo micnaheedu yahay dhaqdhaqaaqa difaaca Bashtuuga. isla markaana wuxuu sheegay inuu ku shaqayn doono xindaabka sharciga, balse culays badan ayuu saarayaa dowladda wadankaasi Pakistan. taliyaha ciidamada wadanka Pakistan Qamar Javed Bajwa ayaa hore u sheegay banaanbaxyadan inay yihiin kuwo la soo maleegay, isla markaana aan ahayn kuwo dabiici ah ama xitaa si maxalli ah u dhashay. xagga warbaahinta ayaa la tilmaamayaa si weyn loo caburinayo banaanbaxyadan, halka geesta kale si weyn loo buunbuuninayo kuwa iyagu ka soo horjeeda. isaga iyo taageerayaashiisu waxay si weyn ugu banaanbaxayeen waqtiyadii ugu dambeeyay deegaanada Peshawar, Quetta iyo waliba kuwa kale oo wadanka Pakistan ah, gaar ahaan deegaanka qabiiladiisu ay degan yihiin. waxa uu qabaa in xuquuq badan ay kaga maqan tahay deegaanadaas, isla markaana dowladda wadankaasi si weyn aysan u ixtiraamin aadna loo baabi'iyo. Amiir Charles Wales ayaa su'aalo laga weydiinayaa lacaguhu ka qaatay amiirkii hore ee dalka Qatar ahna ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ninka lagu magacaabo Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabir Al Thani. haddaba amiirkan ayaa su'aalo laga weydiiyey qaabka lacagtaasi ay ku soo gashay gudaha Ingiriiska iyo waliba xitaa sifada lagu siiyey. lacagtan oo dhan 2.5 milyan oo ganiga sterlinka oo u dhigantay lacago 3 milyan oo euro, 820 kun oo ganiga sterlinka oo kamid ah lacagtaasi ee la tilmaamaya in baco iyo waliba boorsooyin lagu geeyay, isla markaana aysan marin habraacii loogu talagalay akoonno ama xitaa jeegag ama xitaa sifihii sharciga ahaa ee loogu talagalay in lagu geliyo gudaha wadanka UK. amiirkan oo habeenkii xalay tole su'aalahan ka jawaabaya ayaa qaarkood qirtay eedeymaha loo jeedinayo, isagoo sidoo kale iska difaacay lacagtaasi si qaldan inuu u isticmaalay. lacagtan ayaa si rasmi ah ugu gacan gashay waqti uu ku sugnaa Clarence House. bayaan ay soo saareen waxa lagu sheegay inay ahayd tabarucaad dhanka khayriga, isla markaana ka timid Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabir Al Thani, isla markaana ahayd mid lagu fuliyay wadadii loogu talagalay. waxa la tilmaamayaa in jimciyada khayriga loo qaybiyay lacagtaasi iyo waliba sanduuqa khayriga ee amiirka Wales. waxa uu sheegay inay ahayd mujtamac wax loogu dhisay, sidoo kale dhanka caafimaadka, waxbarashada iyo waliba xitaa umuuro kale oo dhanka bulshada in loo isticmaalay lacagtaasi, isla markaana aysan marin goobo kale oo aan munaasab ahayn.